afartan jir ay wuxuu dilay xaaskiisa kadibna meedkeeda ku qariyay ama ku riday qasaan dhexdiisa. ورحمة الله وبركاته أصحاب قليقة ولاش نسيو إذن الله يعني وعافمات قواي إنك مية عافمات قبتين أنت إنك حنوصن ربي سبحانه وتعالى إنه عافيه أنت إنا عافمات كيسة الله سبحانه وتعالى وزياديو أنت إنك لمطين ربيها ونحرستو هذا هو إيري جوبتو وكما سنتا يداوش الفيديو كان هدي أطيوه عصب طايفة نصور لو channel كاga سبسكرايب ده فرقم بلادك si uu ku dhaafin wax walba aniga aan soo dhigo. nin 40 jir ay wuxuu dilay xaaskiisa kadibna qirtay. muxuu u dilay siduuna u qirtay? barnaamijka ilaa ay dhamaad ula soco si aad u ogaatid. xaafad kamida xaafadaha Geesa. nin 40 jir ay wuxuu dilay xaaskiisa kadibna meedkeeda ku qariyay ama ku riday qasaan dhexdiisa. qasaankaas ma ahayn mid la isticmaali jiray ee wuxuu ahaa mid guriga banaankiisa iska yaalay isla markiina wuxuu wargeliyay hooyadeed iyo aabaheeda wuxuuna u sheegay in ay xaaskiisa ka tagtaybo khilaaf yar oo dhaxdooda soo galay in ay guriga ugu baxday iskagana tagtay hooyadii aabii ayaa cabaar wixii ka warsugeen gabadhooda mar alla markay ogaadeen in ay u soo soconin waqtiga loo soo sheegay waqtiga ayaga ay soo bixi rabaan oo farqi weyn u dhaxeeyo ay waxay imaadeen guriga ayagoo si fiican ugu wareysanayo wixii dhacay dibna raadin galay ninkii asigana dhinaciis ayuu ka oynayaa wuxuu la raadinayaa gabadhii maalintan ayaa la raadinayay waxa halkii soo maqlay hooyadiis iyo aabihiisa oo ayagana imaadeen mar alla markay daaleen sidii u raadinayeen ayaa waxa loo yeeray askar ama saldhig in ay tageen ay wargeliyeen in ay gabar ka maqan tahay kadibna ninkeeda khilaaf yar oo dhaxmaray ee iskaaga tagtay guriga raadin dheer qoyska waa qoys aad ugu daalay sidii gabadha ugu raadinayeen maalin labaad ayay gashay maalintii saddexaad aroortii hore ayuu wuxuu tagay saldhiga asigoo la kulmay taliyaha saldhiga saddexdaas maalin wuu ula raadinayay wuuna la ooynayay kaanu inuusan waxba ka ooyin oo kale gabadha hooyadeeda marna ma aysan ka shakinin xataa isma dhihin ninkan yani wuu ooynayaa waxbuu raadinayaa asne nin dulmanu iska dhigaya oo laga tagay taasi ayaa waxa ay dhalisay kadib asigiyaaba saldhigii tagaybo wuxuu la fadhiistay ama la kulmay taliyaha saldhiga asigoo wax walba sida u dhicin ugu sheekeenayo ay wuxuu ku yiri xaskayga ayaa la weysan yahay waa ogtihiin Soomahan ayaa lagu yiri because waa raadinay xaaskaaga meel walba aan ka raadinay waana weynay markaas ay wuxuu ku yiri aniga xataa waxaan aad ugu xumahay daalkii aan daalnay ku talagal ayuu ahaabo in ay daalaan hooyadeed iyo aabaheeda oo aniga ayaa ugu talagalaybo ilaa askarta xataa laakiin ma aana ugu talagalin inay daalaan hooyada iyo aabaheed taliyihii ayaa arinta la yaabay kuna yiri maxaa kala jeedaa maxaa waaye micnahaaga markaas ayuu wuxuu qirtaybo wax walba siday u dhaceen wuxuu yiri waxaan diyaarsaday go' weyn oo aad u adag waa maro go'a oo aad u adag kadib waxaan la farciyaaray xaaskeyga anigoo rabo in aan maradaas ku ceejiyo si aan u dilo kadib ayay maradii ugu dambeyn aan ku ceejiyay farciyaarka ayada la umaleys in aan la ciyaarayo laakiin aniga qorshe ay ii ahayd gabi ahaan ayada inaan ugu taqluusiyo dunida taliyihii asigoo yaaban argagaxnahayo ayuu wuxuu ku yiri waxaad ka hadlaysid waxa fahansantaa biyihiin war waxa ogtahay ma waxaad ka hadlaysid ayuu ku yiri sheekada aan ku sii wado ee iga dhageyso taliya kadibna imarsi ciqaabteeda diyaar ayaan ahay ninkii wuxuu yiri maradii ayadoo dhahays waad igu ceejinaysaa ayaan ku sii ceejiyay ilaa ay nafta ugu baxdo kadibna waa qaaday waxaan ku riday guriga geeskiisa qasaanka yaalo ninkana ma idinkugu soo dhicin inaad ka baartaan meeshaas xataa waalidkeeda iyo labadeeda caruurba wuxuu yiri mar dambe ayaa waxa soo kacday gabadheeda yar
ileen xaaska uu dilay ninkan waxay u haysay 3 caruur 2 roon oo markaas ku maqlaan guriga ayeedooda oo hooyadooda dhashay iyo gabar yar oo markaas jiiftay wuxuu yiri intaan rafaadka ku jiray oon meedkan aan meeshan ku qarinayo waxa soo toostay gabadheeda yar hooyada ayaan telefoon u diray si ay ugu timaado una sheegay gabadheeda in ay ka tagtay gabadhan yar anigan waxaan rabay in ay daasho si u raadinayso daasho laakiin se markaan ogaaday in inaad waxba soo wadin ayadana ay waxba soo wadin ayaa raadintii waxa ku soo darsantay hooyaday anama rabin hooyaday in ay iga daasho sidaa darteed hadda damiirkayga ayaa soo laabtay aan ku sheegay meedka halka uu yaalo ee orodka doon riihi ma uusan sadaqinbo wuxuu mooday ninkan inuu iska kaftamaayo ama carada yacni xaaskiisa ay ka maqan tahay in waxa soo dhan ka keenayaan ayuu u haystay riihi ayaa wuxuu ugu jawaabay anaga ma fadhino waa shaqeynuna maalintii aan noo soo sheegtay ilaa ay hadda ayaan ku gudu jirnaa raadinta xaaskaaga caadi iska dhig ee isdaji orod oo gurigaaga tag waxa aad ka hadlaysine anigu waxaan fahmi kara ma ahane nasasha u baahan tahay in badan soo naso ninkii ayaa ku yiri hadeer aniga ayaa diyaar u ah in aan ku soo tuso meedkii ee ina keena taliyii ayaa ninkan ciidan ku soo daray asigoo wili aanan u haysanbo waxaasiti in ay runka tahay ilaan maaha ninkan nin maandoori isticmaalay ama yacni maskaxdiisa si kale ama laga shaki karabo waa nin xay oo qof weyn camal u labisan laakiinse qalbiga ayuu qarraf ka ahay haduusan maandoori isticmaalin sidaan aniga aan u maleeyo waayo 3diisa caruur ayuu hooyadooda nolosha dhaafiyay ninkii ayaa la soo raacay sidoo askarta u soo waday ayuu wuxuu dul keenay qasaankii xaaskiisa ku jirtay xaaskii oo markaas waad dareemi kartiin 3 yoom qof meed oo meel ku jiray sidoo noqon karo ninkii ayaa markuu kor keenay ayay askartii yaabeen ninka isla markii waa la xiray meedkiina meesha laga soo saaray wili waxa loo sii diray baaris meedkii ayaa loo qaaday baaris ninkiina waxa loo qaaday xabsiga ninka hadda wuxuu ku xiran yahay xabsi ku yaal isla xaafadaas maxkamadiisa ayaa waxay noqonaysaa goordhow markii maxkamad la saaro iyo wixii lagu xukmiyay waani la soo wadaagi doonaa insha Allah biidnillah nin dilaa haddana qirtay waa cajiib intaan sheekadaada ku kulmi doonanay haddaa hore ila joogtid waa ku maasan tahay daawashada fiidiyogan haddii aad igu cusub tahay fadlan soo dhawow channelku waa channelkaaga subscribe dheh furga baleelka si uu ku dhaafin wax walbo aniga aan soo dhigo leegta waa ii muhiim ha iga iloobin kumandig mar walba waxaan ku dhaawaa adiga ra'yigaaga soo qor si aan u arko waase ii dhiirigelin waa ziyo kule is xisaabi inta aan lagu xisaabin ka hor